soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka xabashiid ahaa markii xabashiid la ii geeyey inta xabashiid la ii geeyey ka hor baabuurkii intay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yidhahdeen waxaa next ah oo kugu xijinaynaa ninka la yidhahdo cunaan mooneed ina isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad waa lii dhirbaaxayey waa lii feerayey kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo ninkii ahaa xabashiid منافق النبي عليه الصلاة والسلام وإنه قد جاي منافقة على مدولية إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد خلف منافق معروف أهل نار معروف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ووردك دقا ورهياي صياع صومالي وأحمد رشيد وعاود بسبرين أوتوكتين دليرة صومالية ninka dhalinyarada ayna caawo waxa weeye wuxuu ku badbaaday xaq alluu ka nooleeyay wuxuu yito allah ka noolee miyaa teelo lay dhigtay ninka dhalinyarada waxa caawo dilay oo si bareed ah toogasho ku dilay oo meydkiisa ka talaabsaday ninkii loo rajeeyay dilaagii weynaa ee Axmed Rashiid aan maalmaha ba ka hadlaynay ee dhalinyarada Soomaaliyeed leynayay ninka dhalinyarada waa comedian wuxuu ka hadlay arrintii Sharma Boy wax ka ogaa fiidiyowgu soo dubayna channelkiisa waa laga saaray isagana geeri xabaal isagoo meyd aba laga tagay dar aluu laakiin caawa ka nool yahay waa kan isagoo hadlaye bal aan dhageysano dhibaatada iyo dhaawaca ninka dhalinyarada gaaray iyo ninkaas dhibaatada u geystay inkaar qabahay bal aan wada daawano deedna waxaynu ka oran karno iyo in Soomaali weyn oo dhan ay kacdo ayaan u baahnay sida libax waxay la hadlayo oo insan u dhaawacay maxmaami yahay asxaabay waxa igu dhacday أركل يدري وحواي ودام عن عدالتي حق أكالي أو أنا كهالي رط جرتو شرب بوي يدغ درج لوجيستي وحاد علي وات بركة ساعات بريسي هلك ساعة وينما وحيصوا عند الليرو ده كقبل راين سديد قف بحير هذين ولا بابا هو قار أنا قن ولا ياي هاي هذين بيا هذا شبابا كسكويري هاي وديار مستي قال أقولها waxaa dhacday in la yiraahdo brother waxaa rabaa inaan kulaadlo ana oo kulul aan kulaadlo kala hadla arrinka Sharma Boy iyo waxyaabo ku saabsan waxaa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxaa dhacday dhalinyartii inaan u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdo brother inta ku soo wada hadlayna ee wad waxay aniga baabuurka ku sii jiro waxaa liigu kor wacay ninka la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay ninkan dhalinyarada ah nimankan uga sheekeynaya u yeedhay waxa soo dirsaday dilaaga weyn ee Nairobi dadkii kala yarayay waa Axmed Rashiid ayaa ninkan raadinayay deedna wuxuu u dirsaday dhalinyaradii drugska ahaa ee waxa weeye gabigood waa maqnaa ee rafuucal qalimka ahaa ayaa ninka loo diray qaar ka midana oo isgaranayay waa la wacay hebel miyaha noo kaalay gaarigii baa la saaray Axmed Rashiid dilaagii weynaa ayaa markaa goobtimi dabadeed maxaa dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un war meesha laga kaco war Soomaaliya meesha laga kaco sida libax intii joogtaa waa ku iwaaraya anigu waxaa siri hadii aad kabtid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxa iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile ah maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag toorada wato iyo rag biskoolada wato aniga intaasi kama sabsiri mara ku jiri waxaa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas wada hadal bilaabeen oo meesha gaaribeen la dhaho James Street alxayaat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u gegsan waayay aan gacan u qaaday oo aan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas laba qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waa la iskiigu kaytay dooriyaa la soo baxay toori markii la soo baxay ani markii waxaan waa istaagay oo waan isdijiyay oo la iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeyayo waxaa bilaabay inaan iska dhiciyo sidee ragtiriba waxay tiri balaad waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaa noqday geesi garab waayey oo mataqaanayo meel iska saari waayey haddii murugo iyo dhibaato iyo calool xumo qof bini aadan ah ay nafta ka goyso
dadka Soomaaliyeed caawa daawan doona barnaamijka iyo annaga oo daawanay caawa xaaladayadu ma fadhido Axmed Rashiid iyo Canda Calisay iimaan laawaha afarta qabla bala kaga timi labada nin ayaa wax allaaliyo wixii dhalinyaradii Nairobi joogtay xataa gabadh ka soo hadashay gabadhaas geeri in nolol ay ku maqantay lama yaqaan ku darsada xisaabta Soomaaliyeed ayadoo la kufsanayo oo la qaawinayo oo fay laga galaya baa la soo galin doonaa baraha bulshada waxaan la yaabana aaway culimadii Nairobi joogtay aaway culimadii ilaa ayn aaway culimadii kitaabka siday mase Axmed Rashiid iyo Kukaayo waxay wadato yilma fuufu lama hadli karo aaway culimadii Soomaaliyeed aaway Sheekh Umal aaway Sheekh ninkii oran jiray Shibli Sheekh Shibli shalay ba gabar Soomaaliyeed waa tuu arinteeda aanu ka hadlaynay oo maqnaansay gar iyo gardarraba yiri halka mare ma gabdhaha baa la qaban yaqaana ma waxa laga fadwoon karaa heesaha ma waxa laga fadwoon karaa kiin jaamac ba lugta qaawisay ma nastaxinda halka ka heystay ba culimada Soomaaliyeed ka hadasha khaasatan kuwa Nairobi jooga maxaa looga hadli waayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee suuqa dhex saxab waxa way lagu tooganayo maxaa looga hadli waayay gabdhaha Soomaaliyeed maqan ninkaas habeen hore wuxuu yiri kilibkiisa waa soo gelinayaa qayb kamid ah waa soo gelinaya waa daawan doontaa hadii aan dhinto buu yiri xaq baan ku dhimanaya hadii aan dhinto xaq baan ku dhimanaya ay hal ogaado waana ka caaw ku dhintay cida waxa sameynaysaana waa Axmed Rashiid shalay wuxuu ku gaban jiray super power baan dilaa maanta laakiin youtuber iyo fanaan iyo wadaad iyo mid yar iyo mid weyn cid kasta bastoolad buu sitaa madaxu xabada kala dhacay culimadii Soomaaliyeed waa joogtaa maxay uga hadli waay maxaa looga fadwoon waay maxaa runta loogu sheegi waay ninkan cid uu bixiyaahay ma jirto ninkan waa reer Gaarisa ku dhashay Nairobi buu ku koray inta ku leekaaday hadii cidii qabiilka buunbuunin jirtay qabiil ba sidana hadii qabiil wax taraya marka Cando Mr. Canda fadhida ay iyo xumaan iyo naclad qooshan oo qof laga dhigay gabadhu u booteynayay oo laha maryaha ka saariya waa qaawinaya waa gabar reer Muqdisho waa gabar hawiya hadii qabiil wax tarayo waxa idin sheegay xaraamiinta inaanay qabiilka ku awrkacsadaan daalinkan maanta inankan sida u dilayo iyo gabadha la laayahay iyo wiilka kale la laayahayba waxaad ogaad ninkan waa in ogaadeena oo Gaarisa ku dhashay oo koonfurta Soomaaliya uu NFD koonfurta Soomaaliya uu aqaanay dal xoog lagu haysto hadii qabiil wax tarayo Axmed Rashiid qabiil ma yaqaan waa daalin la kor dhigay oo la hoos dhigay waa nacalad qooshan ninka uu sida u galaya waa ogaadeen isaguna ogaadeen buu sheegtaa waa isku qabiil Cando gabadha uu leeyahay waa ku qaawinaya waa gabadh hawiya oo reer Muqdisho deeq darajaha uu madaxa xabada ka saarayay oo waxa weeye uu dilayo rabay inuu dilo Cando waa nin hawiya markii waxa idin sheegay dadkina durbaanka loo tumayo 10 sano idin la hadlayo 10 sano idin la hadlayay madax ku tidii way dhaaftay bukaan socod baa maanta idin kala dilaya waa inaad meel uga soo wada jeestaan hal meel waa inaad uga soo jeestaan sida libax in oo yutaqana baabuur gistaan ayagoo hajimaad iyo wax walba wada yarbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar liidada cadaan model iyo inta majartaan abadan waxaa balan waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku dhawaanin waxay yiraahdeen adigoo aan majartaanahayn waxaad majartaan oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhil majartaan waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan waa midkaan idin sheegayay ninkan dhalinyarada markii la dilay waxa la yiri Adnaan Model iyo nimanka kale waa majartaan awooyaasheena sidan u galeen eeg waa falsafad la soo dhiibay social media ka socota la doonayo in umada Soomaaliyeed lagu kala irdheeyo qof kasta oo dulmana ana qabiil loogu hiliyo kii la dulmayna qabiil lagu dilo hadii marka qabiilkaas wax tarayo hadii ay jirto hawiyisanka daaroodisanka majeertisanka niicdan iyo sheekada yar koombada ay haday xaq tahay oo jirto oo ay wax goynayso ninkan sidan loo garaacay Axmed Rashiid sidan u dilayo waa in ogaadeena baladeegay
waxaa leeyahay majeerteen baa u daba dhaqaysa niman majeerteen oo majeerteen iyo ogaadeen hoy hoy ma dabeecadada maanaad ugu dayaysaa ma jirka damqanayaan kugu oran buu kaa socdow qabiilkan majeerteenkan iyo ogaadeenkan waxa la kala gurguraya la suuqa sababta markii la dooran la isku qaado liyaado daaroodiisan abgaalkan iyo mursadahan iyo abargirta la kala guriyo soo kala isku yaada hawiyisan yaa waxa loogu sheekeeyay war dadka anaga u nool anaga indhow ah oo anaga aqli u ah oo anaga runta sheegayna oo anaga umada Soomaaliyeed xaq ogeysiinayna hadii culimadii aamustay hadii siyaasigii aamusay hadii wax garadkii lafiisa u baqay war anagu Yurban ku nool اليومkeygana waa helaa wuxuu yiri daayeerki jiray nin qaroon anigu waa xiraar luwaqood hal qarafsado waagu markuu bariyay nin walba اليومkiisa isaga doonta dal baanu joognaa amni leh oo Yurban ku noolnahay laakiin waxa idin sheegaya qof kasta oo xaq ka aamusa oo daalimiintan iyo mashruuca kan la soo qaatay umada Soomaaliyeed uu kala irdeen hadhow leeyahay wareer qasax border wareer qura cimraan wareer meeyaag yaasi halay wareer inqalaasay damal wax ka jiraan ma jiraan waa nin waliba danaysta ya calooshiisu wataa wuxuu yiri calool baan keed lahayn hunguri baan cees lahayn maxaa cusub leeyna daasay barnaamijka ninka lagu dilay jeerteen baa daba dhaq u tahay hadhow waxa loo leeyahay jeerteen daba dhaq uma tiide mursada daba dhaq u tahay waa film la soo dajiyay laakiin gabadhna waa maqan tahay oo waxaan sugaynaa hadaan laga gaarin iyadoo fay laga galo qaawan wiilna waa maqan yahay markii ugu dambeysay xabadaasi dhacay wax marshid ku riday waa kan wiilkii kale isku soo libaax dhalinyaro ogaadeen way soo kaxayeen waxa la yigii dhiga xabashiidaha markii xabashiid la yigii inta xabashiid la yigii ka hor baabuurkii tay wadeen hajabaad badan ay wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijinayna dhikil yiraahdo cunaan model maadaama uu yahay jarteen marka waxa dhacday ila isoo wareejiyaan askari la yigii askari walba la yigii wuxuu igu sameeyay gacaqaad والإرباحي والفيراي كتب وحالة علي اللي يوريجي كتب اللي يجي ركاه أحمد رشيد أمريكا اللي يجي وحويري وكان حي وتجي ناوع الزار وحويري أريك رالي كبيه وحيصوب على بابا وخويا لكن رالي كبيه منافق النبي عليه الصلاة والسلام وإنه قد منافقة على مدولية إذا تؤمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد خلف منافق معروف أهل نار معروف نك أصدر وإسقى مركو يمين فيلو وكان حيا سيدا الوجود لما كان حيا سجانا أصدر سجانا اللوكي سجانا قانك قدام بيله محانا نك الرعية نك مسج بالدحر مركي للدلي أيام مسج نلوديبي قفك مركو النحو وحي لوجو برنامجيا ومركا وحي هذا يمسك شو أوتوماتيك بيوقفصتها عدنان بانو دلينا او مجرتينا بالير واديو كوكو حجينينا واسي مساج كان نيكن هادو markuu wixii la wareysto wixii dhacay uu sheego horaan ay ku sheegay sheekada imaaraad ba ka dambeeya kenyaati ba ka dambeeya sacuudi ba ka dambeeya waa in ay bilaabato baraha bulshada ka bilaabato dad Soomaaliyeed oo walaalo isaystay la waayo marka hore filku waxa daaroodiisan iyo hawiyisan filkii daaroodiisan iyo hawiyisan ku idriisam ku dhamaaday dadku waxay fahmeen waxa la yiri hawiyaha hadana aan si kala jajabino illa baash waa basal qabyaalad waa basal illa ay baxaawi baxali ma tagto ma hadho hawiyihi baa la kala jabiyay habar gidir abgaal mursade xawaadle iyagi baa la si kala jajabinaya daaroodkana waa sidaas oo kale marka hore bareexaan kabla si kala jabi leeka saha dhinac u saar ma jeerteen ogaadeen waa falsafad imaaraad lacag ka bixinayo saddex ilaahay loogu dhaarto oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed social media ku jirta marka laga reebo intaan anigu ogahay Imraan iyo Yaasin Haliyay iyo ninkaliyaado Captain Ayub oo isaga si bareed loo yiri lacagta inta la qaata vaabisa waa markii uu dawladda nabad iyo nolol si toos ah ugu biiray dawladnimada qarannimada u taageeray Captain Ayub falsafadan marka Soomaaliyeed madax ku tahay lacagta loo soo dhiibaya imaaraad baa bixinaya waa kala irdhaynta umada Soomaaliyeed meesha kaliya laga gali karaa waxa weeye waa qabyaalada nimankaasna waxay dhaheen lacagta qaata nin walba 50 40 30 sida loo kala cod dheer yahay sida loo kala aftahansan yahay sida loo kala cod kirsan yahay sida dadka wax looga dhaadhicin og yahay qiimaheeda qaadanaysa ma qajida hebel miisaankiisu lacag abu qaata inta af Soomaaliga uu yahay lacag aad qaadanaysa 50 40 60 rag baa 100 lagu baayacay anu hebel oran maayo
هذا لكن محل الربع مركز الويدين ودي صوت وحيت هنا وحلي بس انت قبطها انت بقى انا صعطها انت بقى مركز نيروبي كشيء ما سجل المشارتين كأوجادين كمرصدها حوالها للا وريجيو واسي السوشيال ميديا قرب وجو قرن ما دون ما يشوف بحده كل سؤال لي بعد ويدي أدي أغرالك هاي وحاكو كل فعيلة بتخلاها أكيد هذيك اليوتاسي أديكو أقول ولا إلى إبادة وعن إله نسيت وحوي وقحوا وحاول إلى كيرا يد اليوتاري ودليل أو هاجر سوبر باور ودليل أو أتخلاص أنت للاي كصهرتي وحال للاي أي درت خميل درت هذا وحيه دليل ما تكجو وهذا حلوك إقبال وتخايا قوع دليل تازي وحي إيشتين أمود حدافة أموداسي أو أهد إليهين وقادين بمقال كان وقادين كتريا أنا أهد دبدل فجرتين ما دام كمان فجرتين محصب إلهي أو حرج لايب أو مقال الدوباي marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharma boy iyo hadalkan uu ku soo celcelinayo walaalkay ogaada waa hadalkii markii la dilayay loo sheegay sidii wax u arkay wuxuu sheegaya laakiin message-kan laftirkiisa ayaga dab weyn baa ugu jirta inuu gudbo laakiin maxay kugu talaa nimaan ka dambeeyaa ma qoslo nimaanu ka dambeynaa ma sii qoslo waxay soo mudafikeeyaan oo soo hagaajiyaan يمينه سودي بابو قبانينا ما قصدت كنتان هدي لا توري reer Yurubtu waa hawada ku qabataa hawada ku qabanayna markaasaan furfurayna waliba message-ka waa gudbis waa la gudbinaya waa hadda iyo drama hor la inaan qallo waa hadda iyo CB hor la inaan ciyaarsiyo laakiin anaga halka fadhina waa dhannahay waana joognaa ku soo liba waxba kama jiraan filinkaas waxba kama jiraan Soomaaliyeed waa inaad kacdaan garab stand up u qaaday ninkii معنا بختي لورا جري بومار أفريقيا استاج بير سومالي وإني استاجتها كوسو علي بح إلى يوسو إيش أيدا توري أياد وطا توري أياد يقول شيء ديك وحنا علي بكتب لي أيدا توري أياد ضدك كنت شاي أو توري أياد وطا وحقيقة يعني أنا بدل ينير أو أصدق الطبلاء صد حدي نمط كل وراء مجال كأنا جرب بريد waxaa dhacday in Axmed Rashiidkii uu inaho waa ka xumaay waxyaaba falkufoosh ugu dhibay markii la dhaawacay la jugeeyay wajigayga dhaawaca la saaray waxay iiba tareysaraan loqo waxba iiba tareyso waxa la iigu sameeyay ragadaay iyo dumarka dhaayay sharma boy wuxuu waxa u sameeyay views tarteeda wuxuu waxa u sameeyay in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal daawadayaasheeda qeybaha qadritwood dhibaatadaani waxay ii soo wartay oo la ii soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana marnaba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka maqlayo mana ka gabanayo xabada haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabada igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaaladda marka asxaabay dhalinyarta kale loo soo socdo waxaan u leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya cadaalad mataqaanaa cadaaladna waa u baahanahay Soomaaliya haddii aad xisbad iyo mataqaanaa wax walba aad iga haysid aan hal maalin kaa qosliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aad iga baryaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa calool xanuun wax la daawan karo oo la dhageysan karo oo qof bini aadan oo insaan iska daa muslim kama hadlayaan gaal qofku haduu yahay gaal baan tan ma daawan karo iska daa qof muslim maxay la gudboon marka aragtaan inaad meesha ka kacdaan Soomaaliya gacmaha isqabsataan dhalinyarta Soomaaliyeedna aan u istaagno rag iyo dumar daawashadaada kaliya loo baahnay waa inaad wax allaalayo wixii aad qaban kartid hadaad qayn kartid
iyo haddaad ooyi kartid iyo haddaad wax qori kartid iyo haddaad wax broblem kaleeto aad wax allaale qof walba wuxuu awoodo uu qaban karo waa in dhalinyarta Soomaaliyeed loo qabtaa Axmed Rashiidna ama maxkamad la soo taago ama isagoo nool la soo qabto oo barxad la soo istaajiyo hadal way deysatani hadal badan ma jiro warsanay nabaadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala